Cuqaasha ee koonfurta Soomaaliya uga yimid nabadeynta xaaladda gobolka Sool ayaa sheegay in ujeedada ay u yimaadeen gobolka Sool uu ahaa xog wareysi ku saabsan xaaladda Laascaanood iyo dagaaladii ka socday sidii nabad loogu soo dabaali lahaa iyagoo sheegay in ay meel iska saareen arrimaha siyaasadda oo aysan jirin wax siyaasi ah oo kulan ay la qaateen. Odayaasha ayaa sheegay in ay u gudbi doonaan dhanka magaalada Hargeysa oo ay la kulmi doonaan madaxda Somaliland iyo sidoo kale cuqaasha. muddo 5 casho ah aan waxaan soo joognay in Muqdisho aan wada hadlaynay ilaahana waafajiyay inaan gudigeena 9 qof soo raacno. alxamdulillah waa xilli fiican ilaahana keenay in war hore aan imaanay ahayd laakiin saanqaadka ilaaha leh waxaan u soconnaa waxa waaye Sultaan Mustafa sheegay qeyr Allah siiyo waxaan u soconnaa waxa waaye dadka ilmaheena awlaadeena walaalaheena labada dhinac oo xagga dibka ku gaaray wiilasha ku baaba'ay in dhiigooda la joojiyo waan dareemeynaa hadallada soo yeerayo iyo su'aalaha imaanayso laakiin waxaan u soconnaa hadda annaga waxay ahayd kaliya in aan xog wareysi u imaano aragno meesha dhibka ka dhacay xaaladeeda aan qiimeeno kadibna aan baxno dhanka kale aan tagno anagoo odayaal Soomaaliyeed ah hal waxna waan ka saarnay meesha wax siyaasad la yiraahdo inaan ka hadlin siyaasi aan la fadhiisan siyaasi aan kala hadlin issue siyaasadda dhanaan iska dhignay kaliya waxaan danaynaynaa haduu Ilaahay raado inuu Ilaahayna waafajiyo ramadaanka fadligiisana Ilaahay laga aqbalo in meeshaas dagaalka ka socdo ummadaas masaakiinta ku baabees in dagaalkaas la joojiyo dhiigaas muslimka daadanay la joojiyo taasaan horta u soconaa ilaahana ka baryana inuu Ilaahay nala galo Ilaahayna aqbal ka dhigo ramadaanka fadligiisa marka hadalka ma rabo inaan ku sii dheeraado annaga missionkeena oo soconno kaas waay dad badan ayaa jiro social media wax ka sheegayo missionka aan soconno inuu yahay mission impossible waan ognahay laakiin xaq Ilaahay wax ka sakir galaan marka ilaahan ka baryana inuu Ilaahay noo fududeeyo annagana waxay noo tahay sharaf karaamay noo tahay hadda markaan Laascaanood aadaynin waxa lagu dhahay iyo si kasto aan ku joogi karno aan noola sheegay garaadiyada iyo ismada aan u tagnay oo intana nagu soo dhaweeyay qaarkood dhowr 10 sano naqaana waxay yihiin aan ognahay xaaladooda ognahay dadaan saaxiibnahay waay marka kamana nafjeclaysanayna dadka reer Laascaanood aan risaasan meesha ku tagnay marka waxaan u baahanahay akhyaaray khayr Allah idin siiyo qof kasto muslim ah ha ka shaqeeyo sulux ha ka shaqeeyo nabadda hal ogaado adduunkan safra lagu yahay qabrigaasna cid kula galayso malaha Puntland aan ka imid iyo koonfur galbeed aan ka imid iyo marka godka gashay adii camalkaaga waay qof kasto bini'aadan ah qulubta Ilaahay daalacanayo camalka saalaxa ha laga shaqeeyo nabadda sidii deegaanka iyo dalka Soomaaliya Ilaahay nabad noogu dhigi lahaa Sultaan Mustafa Awsed oo ku hadlaya afka madax dhaqameedka gobolka Sool ayaa soo dhaweeyay dhinacooda nabadeynta ay wadaan dhigooda odayaasha koonfurta Soomaaliya ka yimid dabcan dad baa si kale u turjumaya laakiin garow dariiqii hadda ugu sahlanaa ilaa Laascaanood loo marayay annaguna intii aan halka isku aragnay annagu waxaan ismadan uga yimaadeen waxay la socdo hadda ismadii gobolka Garaac Ismaaciil iyo Garaad Mukhtaar Garaad Cali waxaan u nimi waxay ahayd in aan ismada soo dhaweyno si galbino ka bacdina aan soo celino halkan intii aan joognay wax wada hadal oo gaar ah oo noo furnaa ma jirin gobolkii markii aan tagnay oo gobolkii indhooda ku soo arkeenna waxa ay noo sheegeen wixii ay noo wadeen oo ah inay doonayaan nabad inay doonayaan dhiiga dadka muslimiinta inay kala badbaadiyaan inay doonayaan xabad joojin annaguna waanu ka aqbalnay waanu soo dhaweynay wixii technical iyo farsamo ahna in laga sii wada hadlo dhinacii kalena ay la aadaan intaas ay arintu ku koobnayd iyagana waxaan Ilaahay uga baryayaa subxaanahu wa ta'ala kulli waa hashi laba midigool dhangadeeyay dhinac walba waxa laga markay dhinac tagaan ba dhinac laga eedeeyo inuu Ilaahay u fududeeyo hawsha ay ku jiraan dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac khasaare hantiyeed oo soo gaaray magaalada iyadoo haatan aysan jirin xabad joojin dhex martay labada dhinac